ciidamada Milatariga Somaliland ayaa saaka Toogasho ku dilay marxuun Cabdi Aadan Jaamac Qalalaw oo kamid ah darawalada gaadiidka loo yaqaano waaradada kuwaasi oo isaga kala goosha gobolada Bari iyo Soob dilkan ayaa ka dhacay kantaroolka Bari ee magaalada Lascanod waxaana faahfaahin ka bixiyay dilkan ay ciidamadu geysteen barasaab ku-xigeenka gobolka Sool oo wareysi siinayay telefishinka SBC dilku Allahu naxariisto marxuunku waa dhintay ilaahayna wuxuu banaajina fardoosan oo bareena dilkaas wuxuu dhacay si qahtalan u dhacay mataqaana isagoo safarkiisa ku jira ciidanka qaranka isna meesha marayaan runtii rasaas bay maqleen aad u qadar dhacday baaxid runtii wax ma ahayn ku talagalana ma ahayn Allah uu naxariiso mar labaadna marxuunka waan la hayaa ragii ciidanka waa la hayaa tirada inta ka saacaday 7 iyo haayeen bal uu sheegay waa la hayaa iyagana runtii sharciga la hormarinaya inuu sheegay waxa sheegaya in ninkaas oo gaariga wata ciidan military iyo gaari Bronos ay soo baxsadeen gaariga ku soo horgooyeen kadibna rasaas ku fureen bal arinta maxaa ka jira arintaas waxa weeyaan waxa dhacday si qalad dhacday ahayd waxa isaga taarget lagu yahay oo lagu bartilmaameed ma ahayn ciidanku runtii wadada marayeen amnigan way sugayeen rasaasna meelaha way ka maqleen markii ka dhacday ka maqleen ma ahayn wax bartilmaameed ma ahayn barasaabka ayaa sidoo kale sheegay in gacanta lagu dhigay 7 askari oo ka tirsan ciidamada Milatariga Somaliland kuwaasi oo dilka geystay sheegana in sharciga la marin doono waa xiriyihiin si wanaagsan aad iyo aad wax uga mahadnaqayaa runtii taliya qaybadada ciidamada Milatariga hawshaas runtii gacan weyn ka geystay oo baaray waa la hayaa runtii ragii falka wala geystay oo dhan marar badan gudoomiye way soo noqotay arintan oo kale in ciidanku ay dad shacab laayaan haddana dadku waxa inta badan ogayaan maxkamadda la soo taagin sharciga la hormarin qof kasta oo sharciga ka adag sharciga ka sare qof kasta sharciga la marin doona hadii la hayd qof aan sharci qaban karin ma jiro military haado ama ha hada wasiir ama ha hada barasaab ama ha hada qof kasta sharciga ma qabanaya qofna lagu tacdiyo ma sharciga ma la marinayo ما markii ugu horeysay ciidamada Milatariga Somaliland ay ku sugan jiidaha gobolka Sool ay geystaan dilal noocan oo kala balse ay tahay mid soo noqnoqotay muddooyinkii u dambeysay Muqtar Cabdi Jaamac wararka warbaahinta SBC Lascanod